بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأحمد waxaan sii wadanaynaa darsigii calculasta. Darsigan waxaan ku qaadanaynaa bandhigidda ama waxaan soo bandhigaynaa derivative-ka. Derivative yani waa carabi waxaa la yidhahdaa ishtiqaaq, wuxuu yahay iyo siduu yahay iyo sida looga shaqeeyay iyo waxaasoo dhan insha Allah gudaha darsigana waa ku fahmi doonaa. Okay, graafyadan meesha noogu yaalla marka haddaan fiirino, graafkana noogu muhiimsan. kuwan kale waxay ku tusinayaan kan inuu dhankan minuska, dhankan waan garanay aan dhahay pluska, dhankanna waa minuska. Marka kan wuxuu ku tusinaya slope-ka dhankan marka la fiiriyo inuu ka yahay minus, slope of tangent line-ka inuu meeshan minus ka yahay, kan minushan inuu ka yahay plus ka yahay. Okay, waxaan aan rabno laakiin waxay tahay, okay, marka ugu horeyso bal maxay ku kala duwan yihiin secant ama tangent maxay ku kala duwan yihiin? Mar walba haddaad maqasho secant waa khadkan toosan ee labadan point u dhexeeya waay. Mar walba laba point wixii u dhexeeya waay. Markuu saasoo kale yahay matalan pointigan iyo pointigan khadka u dhexeeya waxaa la yiraahdaa secant line. Ama tangent line-ka muxuu yahay? Tangent line-ka waa pointiga meesha uu ka qalloocanayo meel ay meeshuu yahay, meeshaas point hal noqdo keliya meesha khadka toosan, khad toosan uu ka taabanaya waxaa la yirahdaa tangent line. Labadooda saasay ku kala duwan yihiin. marka slope-ka fiiriso, kan slope-kiisa waa laxdada meeshaas uu iska bedelayo pointigaas, isbedelkaas markaas uu sameynayo mucadalkiisa ama ratekiisa laga fiirinaya. Markaas kanna waxaa laga fiirinayaa labadan noqdo rateka janjigooda ayaa laga fiirinaya. Okay, marka say noqonaysaa marka equationkooda ama mucadaladooda. Graafkan markaan fiirino hadda, graafkan markaad soo fiiriso, dhankaana waa y, dhankaana waa x soo ma. marka fiiri, tan noqdadan FFA iyo FFX waay. Kanna labada noqdo waxay noqonaysaa waa A iyo X. Marka slope-kan seen ku soo saaraya, matalan ani markaan u baahanahay slope-ka kan ama slope-ka kan markaan rabo inaan soo saaro seen ku soo saaraya, waxaa ku soo saaraysaa noqdadan iyo noqdadan aad fiirinaysaa. waxaad leedahay markaad laakiin kan slope-kiisa rabtid inaad soo saartid secant-ka, markaad soo saartid waxaad leedahay FFX minus FFA loo qaybiyey labadan noqdo oo iyadana ah X laga jaray A. saasaa marka ku helaysaa. Ama laakiin slope-ka tangentiga markaad soo saaraysid waxaad leedahay limit X-ta mar walba intay u socotaa dhankan sooma, intay usoo laabanaysaa eeday usoo socotaa. Laan noqdadan waa noqdada markay isugu imaanayaan maxaa waaye kulligood saanay usoo socdaan. X-tana y-dana way soo degaysaa, X-tana way soo yaraanaysaa. Marka waxaad leedahay marka waxaan leeyahay limit X waxay u socotaa dhanka A, markaas waxaan leeyahay FFX laga jaray FFA loo qaybiyey X laga jaray A. saasaa lagu helaa marka, waana ka mucadaladooda. mucadalada tangentiga waa ka secant-ka laakiin wuxuu kaga duwan yahay limitkaas uusan lahayn. Okay, marka mithaaladan ku ogaanaynaa. markaad laakiin labadooda qorayso mucadalooyinkooda say u qoraysaa, waxaan u qoraynaa markay secant tahay. secant-ka mar walba waxaan niri waa laba point rateka oo janjigooda laga fiirinayo. mar walba celceliska labadaas point janjigooda mucadalka muxuu yahay? Okay, waxaan leeyahay marka m secant waxay la mid tahay FFX laga jaray FFA loo qaybiyey X minus A. saan meeshaan kusoo aragnay, anaga meeshaan kusoo aragnay. markaan soo saarayo slope-ka noqdooyinkan saasaan ku helaya. Okay, markaan laakiin tangentiga soo saarayo muxuu yahay? waa ka hadda arkayna. waxaad leedahay slope-ka tangentka waxaa lagu helaa m tangent equal limit
x waxay u socotaa a f of x laga jaray f of a loo qaybiyey x minus a. okay, mucadaladoodii marka ama equationkii tangent lineka saan ku helaya. tangent lineka waxaa ku helaysaa mucadaladiisa sida caadiga slopeka markii lasoo saarayo caadiga oo kale oo ah y minus, ana waxaan leeyahay hadda meeshii y1 aan dhahayo laakiin waxaan ku bedelayaa f of a. f of a waxay la mid tahay slopekii oo tangentiga lagu dhuftay x minus a. saasaad mar walba u qoraysaa, formkaanaad u qoraysaa markaa rabto inaad soo saarto mucadaladeeda. okay, bal haddaan fiirino mithaalkan examplekan waxaa la isiiyey f of x waxay la mid tahay layidhi mucadaladan 2 pointina waa la isiiyey oo pointiga isugu imaanayaan labadooda x-na waa 2 y-dana waa 15. graafka markii la sawiro meesha isugu imanayaan ama tangent lineka maxaa waaye, pointiga waxaa waaye waa 2 iyo 15. okay, marka waxaa laga rabaa aniga inaan marka hore soo saaro slopeki kadibna aan soo saaro equationki. saan kusoo saaraya marka kooda hore waxaan sameynaya marka sidii hadaya aan soo aragnay waxaan soo qaadanaya qaanuunka ama ruleki. waxaan leeyahay slopeki maxaa lagu helaa oo tangent lineka waxaa lagu helaa wuxuu la mid yahay limit x waxay u dhawaanaysaa a waa f of x laga jaray f of a loo qaybiyey x minus a. ku bedela marka waxaad leedahay limit x waxay u socotaa meeshay u socoto pointiga x aa fiirinaysaa. x pointiga maxaa waaye waa 2. 2 aan meesha ku bedelayaa waxaan leeyahay 2 f of x tan marka maxay la mid tahay f of x tan waxay la mid tahay tan soo maha tanaan soo qaadanaya equationkan 2x square plus 5x minus 3 daanaan soo qaadanaya. waxaan leeyahay marka 2x square plus 5x minus 3. okay, minuskan soo qaado waxaan leedahay minus ani marka f of a aawe f of a waata. haddaad meeshan aadan ku haysanin waxaad ku soo saari kartaa intaad ka soo saari kartaa. waxaad ku soo saari kartaa waxaad leedahay f of a hadda meesha maxay la mid tahay waa 2 soo maha. laba ku bedel waxay la mid tahay meel walba x equationka ah laba ku bedel waxaa leedahay 2 square plus 5 lagu dhuftay 2 minus 3 waxay ku soo saaraysaa marka laba haddaa square garayso waa 4 laba kale ku dhufato waa 8 lagu daray 5 haddii laba lagu dhufto waa 10 laga jaray 3 maxaa kuu soo baxaya meeshan waxaa ii soo baxaya 18 lagu daray waa 18 laga jaray 3 waa 15. soo ma jeed ama saasa ku heli kartaa ama meeshan pointiga lagu siiyeyba ku taalaaba oo adoonan bashaqa kale sii gelin. marka waxaa leedahay meeshan 15 loo qaybiyey waxaan leeyahay marka x minus 2 a mar walba meel walba waxaad ku bedelaysaa a ah 2. marka maxaan sameynaya marka tanaan sii dhiranaya tan kore ani waxaan rabaa hadda haddii mathalan meeshan ku bedelo hadda limitka toos haddaan ugu bedelo ilaa sida anaga hore limit aan ugu soo aragnay mathalan hadda toos labadan inta qaadato meel walba x aa ku bedesho maxaa kuu soo baxaya tan hoose fiiri haddaan inta laba ku bedelo meeshan 0 waa soo baxaysa horena waa u sheegnay hoos haddii 0 noqoto limitkii qiimo ma yeelanayo wax error uu noqonaya. marka ma rabaa ani saas inay iga noqoto maxaan sameynaya marka tan koowaad ayaan waxaan fiirinayaa maxay ka timid mucadaladan koowaad maxay ka timid asalkeeda maxaa laysku soo dhuftay oo sidaan i siisay ka hor intaadan ba horta saan sameynin labadan minus 3 iyo minus 15 tan isku darso maxaa kuu soo baxaya waxaa kuu soo baxaya soo maaha akhiiran muxuu noqonayaa limit x 2x square plus 5x minus 3 minus 15 waa minus 18 loo qaybiyey x minus 2. ani marka hadda waxaan sheegay waxaan rabaa laba tiro
laba wax equation ama wax la isku dhuftay oo ka timid tan asalkeeda maxay ka timid tan asalkeeda marka maxay ka timid waa tan hadda haa tan maxay ka timid okay waxaa fiirinaysa adiga mar walba waxaad leedahay hora marna dursi gooni waa ku qaadanayna sidii lagu soo saaro laakiin waxaad fiirinaysaa laba lambaro haddaad isku dhufato ku siinayo 18 haddaad labadooda mid ka mida ku dhufato labadan fiiri oo ka jarto midkii kale ku siinaya 5 intaasaa laga rabaa bas maxaa niri waa laba tiro haddii laisku dhufto ku siinayo 18 haddaan labadooda mid ka mida ku dhufto kan oon ka jara kii kale i siinayo 5 ma fahan hadda marka maxay noqonayaan laba tiro oo 18 i siinayo waxaa ugu dhow waa hal markii lagu dhufto 18 iyo laba markii lagu dhufto 9 iyo markii lagu dhufto 6 saddex lagu dhufto intaas waxay ku siinayaan 18 okay ani marka toos midku yahan u qaadanaya waana ku tusinaya waxaan leeyahay marka waa 2 iyo 9 2 iyo 9 hadda haddaan isku dhufto waa 18 labadooda mid ka mid ah haddaan ku dhufto labo waa kane waa 4 oon ka jara 9 waxay siinaysaa 5 oo tana soo ma jeed aha marka ani labadii aan qaadanaya marka say u qormaysaa marka mar walba waa lasii diyaarsadaa waxaa la yidhahdaa okay waxaad leedahay limit waxay la mid tahay limit x waxay u dhowaanaysaa 2 waxaan leeyahay 2x mar walba adiga waxaad fiirisaa haddii laba lambar x uu la socdo saasaa loo qortaa 2x lagu dhuftay x marka labada lambar maxaa niri waa 9 iyo 2 calaamadahay kala qaadanayaan waxaa waaye maxay noqonaysaa waxaad fiirinaysaa mar walba marka ugu horeysa calaamadan labada ama mar haddaan isku dhufto labada tiro calaamad minus ay siinaysa maxay noqonaysaa waa inay minus iyo plus yihiin haddaan iraahdo plus ay siinaysa haddaan minus iraahdo plus ay siinaysa laakiin waa inay noqdaan minus iyo plus si kale ma noqonayso saasay waxay ugu siinayaan minus 18 marka adoonan kan marka minuska siinaya midkansa siinaya pluska waxay ku xiran tahay haddana tan waxaan fiirinayaa marka haddaan hadda kan labadooda midkan minuska haddaan siiyo waxay noqonaysaa markaan labada ku dhufto ma aan ka jara haddana 40 haddaan iraahdo waa ka jaraya minus iyo minus ay noqonayaan waxay isku noqonayaan waa isku darsamayaan sayna saas iga noqon waa inaan tan marka pluska siiyo oo markaas aan dhaho plus iyo minus hadda markaad tan ku dhufato waxay noqonaysaa 9x markaad laakiin tan ku dhufato tan waxay noqonaysaa 4 minus 4x markaa kala jirta labadoodii 5x aa kusoo haraysa okay loo qaybiyey x minus 2 oo tii hoos ii taalayahan soo qaatay okay hadda markaad fiiriso labadan tan kor iyo tan kor waa isku mid soomaa tan iyo tan waa isku mid labadooda isla bixi meeshii maxaa kuu soo haray waxaa kuu soo haray marka meeshaan ku qoro waxaan leeyahay waxaan leeyahay slope tangent wuxuu la mid yahay limit x waxay u socotaa 2 waxaa ii soo haray 2x plus 9 okay toos ugu bedela marka waa naqaanaa markuu limitka sidan yahay hore usoo qaadanay toosa ugu bedelaysa hadda wax lambar rasmiyaha kusoo baxaya sooma marka x-ta 2 ku bedel meel walba x-ta 2 ku bedel maxaa kusoo baxaya meeshaan x-tan haddaan 2dan ku bedelo 2 lagu dhiftay 2 waa 4 lagu daray 9 maxaa soo baxaya waa 13 13 kusoo baxaysa marka mailkii muxuu noqonayaa slopekaagii muxuu noqonayaa 13 ama 13 okay waxaa laga rabaa marka aniga hadda equationka inaan keeno mar walba weligaa waa dadku waa isku khaldaan iska ilaali markii lagu yiraahdo waxaad soo saartaa slope nidaamkaana oga shaqeynaysaan hadda oga shaqeynay slopeka markii lagu diro sidan muxaadaladana qaadanaysa kusoo saaraysaa markii lagu yiraahdo waxaad soo saartaa tangent line equationkiisa soo saar markii lagu yiraahdana formkii equationkii aan hadaya soo qornay aad qaadanaysaa ood kaga shaqeynaysaa okay marka waxaan leeyahay equationka waxay ahayd y laga jaray ffa
waxay la mid tahay m tangent lagu dhuftay x minus a y minus ffdeeda aniga maxaa waaye ffdeeda waa 15 soo maha waata 15 waaye 15 ka soo qaado waxaad leedahay 15 equal slopekii waa kan soo saaray waa 13 lagu dhuftay x minus eedana waan sheegno waxaana waxay la mid tahay 2 maxaan leeyahay marka 13 waxaa ku dhuftaa x haddana tan ku dhufo tanna soo wareeji laba shaqaan hal mar isku qabanaya ila soco tana tan ku dhufanaya tanna waan ku dhufanaya tanna waan soo wareejinaya okay maxaan leeyahay marka y waxay la mid tahay 13x minus 13 haddii laba lagu dhufto waa 26 tan markaan soo wareejiyo minus 15ka inta waxay ku noqonaysaa plus 15 dadka qaar waxay sameeyaan labada dhinaca waxaa lagu daraa cagsiga tan ayaa lagu qoraa tan minus 15 soo maa inta waxaa ku qoraysaa plus 15 intana plus 15 hadday plus tahay waxaa ku qoraysaa inta minus 15 intana minus 15 labadan way isla baxayaan oo zero way noqonayaan inta marka tii ku soo ama haddii kalena waa soo wareejisteen waa dhihi kartaa okay plus 16 15 maxaa soo baxaya marka the ending mucaadaladii ama equationkii waxay noqonaysaa 13x minus 26 plus 15 maxaa soo haraya markaa kala jirto waxaa kuu soo haraya 5 haddaan 6 ka jaro waa hal 2 haddaan 1 ka jarana waa hal marka maxaa ii soo haraya tirada weyn waxay wadatan qaadanaya waa minus 11 equationkii tangent line-kana waa ka marka derivative-ka iyo maxaa iska khuseeya waxaan aan hadda qorayo waxaa ogaataa mar walba tangent markii la yiraahdo tangent line-kan meesha uu ka taabtay slope-ka markaad soo saarto iyo derivative-ku waa isku mid derivative-ka iyo slope-ka aad hadda soo saartay waa isku mid waxaad ku ogaan kartaa mathalan mucaadaladan hadda la siiyey ama equation-kan meeshan laygu siiyey kan haddaa hadda derivative ku samaysa ama ishtiqaaqiso waxaa kuu soo baxaya nafsi kanaa kuu soo baxaysa 13 kuu soo baxaysa marka waxaad ogaataa mar walba maskaxda ku haysaa tangent line-ka slope-kiisa iyo waxaa isku mida derivative-ka hadda dan ku sameeyo waa ka aan ku tusiyo isku siyaa soo baxaysa mathalan waxaan iri 2x square plus 5x minus 3 ffx saasay la mid tahay soo ma okay marka tan derivative samee ama ishtiqaaqi marka la ishtiqaaqinayo waan arki doonaa qaaninta laakiin aan waxaan rabaa inaan ku tusiyo inay isku mid yihiin waxaad samaysaa kan wuxuu noqonayaa qaanuunka waxa waaye kii kan koreeya ama powerka la dejiyaa meeshaana la keenaa ama wixii meeshan yaallu mar walba ku dhacaya hadda hal hadduu yaallo halkii ku dhacaya hadduu 2 yahay 3 4 wuxuu yahay meeshaas ku dhacaya isla numberkii meeshan yaallayna waxaa ka jaraysaa markaas 1 ma la fahmay marka maxaan leeyahay markaad maxay noqonaysaa haddaan kan dejiyo 2 haddaan 2 ku dhufto waxay noqonaysaa 4 2dii kor saarneed haddaan halka jarana waa 1 kor hadduu noqdo lama qoro okay plus kanna sidoo kale ku samee 1 waayo korka wax saaran 1 5 lagu dhuftay waa 5 haye meesha maxaa 1 haddaan ka jaro 1kii meeshan ii yaala haddaan 1 kale ka jaro maxaa soo haray 0 wuxuu ama power u noqdo ama exponent u noqdo waa 0 waa 1 sorry waa 1 iska ilaali wuxuu 0 u noqdo exponent power u noqdo waxaa soo baxaya 1 markii lagu dhufto 5 maxaa soo haraya 5 tan kale kuu soo hartay tan minus 3 ama ay number waxaa ogaataa markaad derivative ku samaysid wuxuu la mid yahay 0 marka meesha maxaa ii soo baxaya waa 0 meesha maxaa iiga soo haray marka 4x plus 5 ani marka maxaa la siiyey meeshan ffadayda waxay la mid tahay 2 soo ma sidii hadday aan sameynayna tan labadii ku bedel marka waa 4 lagu dhuftay 2 meel walba x aan 2 ku bedelaya plus 5 maxaa soo baxaya marka 4 haddaan 2 ku dhufto waa 8 haddaan 5 ku daro meeqa waaye
waa 13 soo ma jeedi marka waa isku mid saas ogeeda marka waxaa lagu tusinaya hadda tangent line-ka slope-kiisa saasaad markaad soo saarto iyo markaad ku samayso equationkii markaad derivative ku samayso waa isku mid mar walba waa inaad taa ogaato mucadalada soo saar marka lagu dhahana ama equationkii tangent line-kana sidaana kusoo saaraysa okay example-kan kale aan fiirino kan adi isku day inaad ka shaqaysa kadibna markaas videoga ka fiiri sida uu xalkiisa noqonayo kana sidoo kale waxaa laga rabaa slope-ka laga rabaa kow oo tangent line-ka kadibna waxaa laga rabaa inaan soo saaro equationka sidii haddii aan sameynayno kale okay maxaa mar walba adi samaynaysaa waxaa qoraysaa slope-ki equationki sidii lagu helayo aad qoraysaa waxaa leedahay m tangent waxay la mid tahay limit x u dhawaanayso a ffx minus ffa loo qaybiyey x minus a okay ku bedel haddana okay equal limit x waxay u dhawaanaysaa mar walba aad waxaa fiirinaysaa pointigii maxaa lagu siiyey meeshaan hadda waxay u socotaa pointigan maxaa waaye waa 4 x waa 4 y-na waa 2 marka x waxaan leeyahay waxay u socotaa 4 ffx teeda maxaa waaye waxaan fiirinayaa ffx maxay la mid tahay layiri square root x soo qaado waxaad tiraahdaa square root x minus aniga marka maxay tahay ffa-dayda maxaa waaye ffa-daada waa 2 yani mar walba iska ilaali xataa haddaad aadan meeshan ku helin waxaan niri haddaad forta kan ku bedesho yani ffx xta meeshan xta haddaad fortan ku bedesho hada meesha 4 haddaad geliso square root 4 maxaa soo baxay 2 aa soo baxaysa marka meeshaada maxay noqonaysaa ffa-daada 2 loo qaybiyey x minus 4 yani 4tan waa ade qaanuunkana mar walba aniga ku dabaqaya okay markay saan tahay hadda haddaan meeshan 4 ku bedelo maxaa soo baxaya haddaan limitka sidii tooska looga shaqeynayo kale oga shaqeyn meeshan haddaan ku bedelo 0 ay soo baxayso 0 si aan uga hortago waa inaan marka sii furfuro oon kasii shaqeeyo maxaan sameynaya marka kor iyo hoos waxaan ku dhufanayaa conjugate waxay dhahaana sameynaysaa yani kor iyo hoos waxaa ku dhufanaysaa meesha qeybtii rootka wadatay waxaan ku dhufanayaa tan cagsigaadii maxaa waaye square root minus 2 way sooma square root x minus 2 waxaan ku dhufanayaa square root x plus 2 ban korna ku dhufanaya hoosna ku dhufanaya mar walba xisaabaadka sidaana ka shaqeynayso saasaa la sameeyaa okay waxaan leeyahay marka ku dhufo kor iyo hoos waxaan leeyahay square root x plus 2 iyo square root x plus 2 maxaa soo baxaya marka waxaa ii soo baxaya limit x u socota 4 tan marka haddaan square root x square root yani adiga qoysas si aad u yara fahanto qoysas asaas qowsaa la gashtaa balse kuugu caddaato haye marka fiiri maxaa sameynaya waxaan leeyahay kan ku dhuf sidii caadi isku dhufashadii kanaan kan ku dhufanaya haddana kanaan ku dhufan haddana kanaan kan ku dhufan haddana kanaan ku dhufan maxaan leeyahay hadda marka haddaan square root x haddaan square root x ku dhufto maxaa soo baxaya tiradii gudaha ku jirta ay soo baxaysa laba waxoo isku eg haddaa isku dhufato oo square root wato tii gudaha ku jirto baa kuu soo haraysa marka maxaa ii soo baxaya x okay waa garta haye tan labaad marka square root x lagu dhufto square root 2 maxaa kuu soo baxaya square root x markii lagu dhufto 2 waxaa kuu soo baxaysa 2 oo square root x lagu dhuftay soo ma ila iskuma dhufsamaan calaamaday qaadanayaana waa plus tanna plus ay wadataa tanna plus square root-kana plus wataa square root-kana 2dana plus ay wadataa marka maxaan leeyahay waa plus 2 square root x waxaa ii soo haray qaybtii kale haddana waxaan leeyahay haddana minus 2 lagu dhuftay square root x maxaa soo baxaya
minus 2 square root x soo ma waxaa soo baxaysa minus 2 square root x. haddana aan 2 ku dhufto minus 2 haddaan ku dhufto plus 4 maxaa soo baxaya minus 2 haddaan ku dhufto plus 2 maxaa soo baxaya minus 4 ay soo baxaya waa minus 4 loo qaybiyey labadaana fiiri haddana sidoo kale iyagana isku dhufo tan marka fiiri caqli baa la sameeya haddaan hadda labadan isku dhufto maxaan ka faa'iidayaa arrintan baa mucaqad igu sii noqonaysa waa igu sii adkaanaysa haddaan hadda tan inta qaado haddana tan ku dhufto laakiin xigmaa la adeegsada waxaa la sameeya xisaabta weligeedba caqli iyo maskax un waa tan haddaad qaado tan ku dhufato sheekadii way kugu dheeraanaysaa maxay ku noqonaysaa hadda tan hadda mathalan tanaad dhiraandhirisay ka shaqaysay hadda mathalan hadda tan kore bal ka shaqee intaana tan hoose u gudbin tan kore maxaa noo soo baxay tan kore hadda fiiri tan plus 2x square waay soo ma plus 2 square root x tanna minus 2 square root x labadan way isla baxayaan soo ma labadan way isla jarmayaan meesha minus zero waa iisoo hartay waxaan leeyahay marka waxaan soo qaadanayaa marka x minus 4 bas x minus 4 kor x minus 4 ay taala hoos laakiin ha taabanin sideeda usoo qor ayagoo sidoodii waxaan leeyahay hoos waxaan leeyahay x minus 4 lagu dhuftay square root x plus 2 soo ma jeed maxaa marka noqonaysaa marka fiiri waxaa ii soo haraya limit equal limit x ay u socoto 4 kor waxaa ka soo baxa markaan labadan isku bixiyey waxaa ii soo haray x iyo minus 4 waxaan leeyahay x minus 4 hoosna maxaa ii soo haray labadaanoo la isku dhuftay waxaan leeyahay x minus 4 iyo square root x plus 2 bal fiiriyaa marka hadda micnaha aan ani u rabto maxay tahay hadda labadaana isla saari karaa soomaa haddaan laakiin labadan isku dhufan lahaa maxaan faa'iidi lahaa waxba ma faa'iidin marka waa inaad fiiriso ood maskaxdaada mar walba ku xisaabtanto waxaad mar walba xisaabta markaad ka shaqaynayso sida kugu dhow eed wax ku heli kartid wax ku xallin karta marka labadan way isla baxayaan maxaa soo baxaya labadan way isla tageen meesha maxaa kuu soo haraya marka waxaa ii soo haray limit x ay u dhowaanayso 4 meeshaan waxaa ii soo haray 1 over square root x plus 2 ku bedel markaad ku bedesho 4 square root x maxaa kuu soo haraya yacni markaan hadda kale waad ku bedeli kartaa waxaad soo qaadanaysaa labada afartaana soo qaadanaysaa meel walba x ku bedelaysaa annaga hal x aan haysanaa oo x oo square root ku jirto marka tan geli marka 4 markaan square root ku bedelo maxay noqonaysaa square root of 4 soo ma 4 marka square root ka baxda maxaa soo haraya waa 2 2 lagu daray 2 na maxaa soo baxaya waa 4 4 soo baxaysa marka 1 over 4 ay noqonaysaa marka meeshaan maxay noqonaysaa ugu dambeyntii waxay noqonaysaa mile slopekii tangent wuxuu la mid yahay 1 over 4 meesha maxay soo haray 1 over 4 slopekii waa kaasa waa fahantaan u malaynaya dariiqadan kusoo saarna ani meesha igu cariiriya laakiin adiga inaad isku habaysan karta isku day okay mucadaladiisaan kusoo saaraya ama equationkii tangent lineka waxaa kusoo saaraysaa saan haddaa soo sheegin oo kale y minus ffa equal slope tangent lagu dhuftay x minus a meel walba ku bedel marka y minus ffa-deyda waan sheegay waatan waa 2 waxaan leeyahay 2 equal slope of tangent lineka waa soo saaray waa 1 over 4 lagu dhuftay x minus eedaadi maxaa waaye marka hadda waa 4 soo ma 4 waaye oo kaasa 4 marka maxaan leeyahay marka
hadda sidii hadaayo kale laba shaqaan isku qabanaya, tanna waa soo wareejinaya intaan keenayaa, kuwaana waxaan ku dhufanaya x sidii hadaayo kale. waxay noqonaysaa marka y waxay la mid tahay 1/4 x minus, marka 1/4 markaan ku dhufto 4 maxaa soo baxaya? waxay soo baxaya 1/4 markaan ku dhufto 4 tan waxay soo baxaya 1. waxaan leeyahay 1 minus 2 dii markaan soo wareejiyo waxay noqonaysaa plus 2. ugu dambeyntii mucadalada waxay noqonaysaa y equal 1/4x minus 1 iyo plus 2 waxaa soo haraya plus 1. equationka ugu dambeeyay ama tangent lineka equationkiisa muxuu noqonayaa y equal 1/4x plus 1. darsigan maanta intaasaan ku joojinaynaa insha allahu. qeybtiisa kale waxaan qaadanaynaa video kalean ku qaadanaynaa insha allah. aad baad ugu mahadsantihiin daawasho wacan. wixii khaladaada iyo tala iyo tusaalahana mar walba hoos iigu soo qora. waan idin salaamaya. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.